بسم الله الرحمن الرحيم أحد شنطة بشا أبريل سنة كالبكون لباتن لح أو كوباغن تضبية طبانكا بشا شوال سنة كون أفر بقول أفرتن يتضبا تاريخ الهجرية كسو دوادا مركله يبرامج ورشاد مراركا قضبدا ساكا برامج كأن إذن كوهاينو وحا كمدا iyadoo maanta dagaalka bariga dhexe ka aloosan oo galay maalintii 38aad waxaa socda duqeymo iyo weeraro culus oo la isweydaarsanayo waxaa u sii dheer hanjabaadaha hawada la isu marinayo Mareykanka iyo Iiraan ayaa si adag waxa ay hawada isugu mariyeen hanjabaado ku aadan duqeymo culus iyo weeraro culus waxaa soo ifbaxaya faahfaahinta warshad farsamaysa diyaaradaha droniska oo Israa'iil ku taal oo Iiraan ay beegsatay 48 saac gudahood markii la kala iibsaday Trump oo ku faanay in ay laayeen intooda badan taliyaashii ciidamada Iiraan kuwa kalena ay sugaysa geeri waa si hadalka uu dhigay xog sirdoon oo Mareykanka iyo Israa'iil isu weydaarsadeen ayaa banaanka soo dhigtay arrimo halis ah oo la xiriira gantaalada Iiraan taasi oo ka duwan wixii Trump iyo Netanyahu ay sheegayeen ee ahaa in ay si weyn u burburiyeen awoodii Iiraan ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil ayaa soo saaray qayladaan ba'an haddaba maxay tahay arrintan marada u ruxaya ee walwalka ku haysa warbixin ayaan idinkaga haynaa amuur dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka dhawaada marka la daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir oo aadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka wahagaag xaaladda bariga dhexe waa bariga dhexe dagaalkii imika wuxuu ku sii dhow yahay 40 maalmood Washington iyo Tel Aviv waxaa la leeyahay yahay awoodda Iiraan ay la soo baxday diyaaradihii dagaalka Iiraan sida shimbirihiiba isu daadinaysa horta diyaaradihii droniska warkooda iska wadaaba 160 ay hadda marayaan tiradooda Mareykanku Israa'iil wuxuu ku yiri waa inay taxadirtaan meeshan wax kala ka soo ifaya Trump xalay digniintii ugu dambeysay buu jeediyay leeyahay 48 saac kadib Iiraan wax aan la maqal oo la arag baan ku dhigaynaa Iiraanita ayaguna way soo jawaabeen haddaba aynu eegno war amurtan la xiriira gaar ahaan wararkii ugu dambeeyay ee hadalka ka soo yeeraya mas'uuliyiinta waddanka Iiraan ee la xiriira hanjabaadaha madaxweyne Trump ka soo yeeray taliyaha xarunta dhexe ee howlgalada military ee Khaatimul Anbiya ee ciidanka Iiraan Ali Abdullahi ayaa ku nuuxsaday in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu hanjabaad u jeedinayo Iiraaniyiinta gaar ahaan in uu beegsanayo kaabayaasha iyo hantida qaran ee dalka kadib guuldarrooyin isdaba joog ah oo uu la kulmay wuxuu farta ku fiiqay in haddii Iiraan weerar ay kala kulanto sida uu yiri cadawga Mareykanka iyo Sahiyuuniyadda iyaguna si aan xad lahayn ay u beegsan doonaan dhammaanba kaabayaasha dhinacyadaasi iyagoo adeegsanaya weeraro burburin oo joogto ah Ali Abdullahi ayaa sidoo kale wuxuu ka shanqariyay in tan iyo bilowgii dagaalka lagu soo qaaday Iiraan ay fuliyeen dhammaanba wixii ay sheegeen isagoo fariintiisa ku tilmaamay in ay furi doonaan albaabadii cadaabta waxa intaasi uu ku daray in Iiraan marnaba aysan ka labalabeynayn difaaca xuquuqdeeda shacabkeeda iyo ilaalinta hantida qaran isla markaasna cid kasta oo gardarro samaysa la gelin doono meesha ay mudan tahay dhinaca kale wakaaladda wararka Tasniim ee laga leeyahay waddanka Iiraan ayaa sheegtay in ilo military ay xaqiijiyeen in ciidanka Iiraan ay ku dareen 2 warshadood oo koronto oo ku yaala Israa'iil liiska bartilmaameedyada kadib warbixin Reuters ay baahisay oo sheegaysa in Israa'iil ay diyaar u tahay in ay beegsato xarumaha tamarta ee Iiraan ilo warajada waxay tilmaameen in tilaabadani ay qayb ka tahay siyaasadda isdhaafsiga weerarada oo muujinaysa diyaar garow iyo jawaab celin xooggan
isla wararkan wargeyska Wall Street Journal ee ka soo baxa waddanka Mareykanka ayaa wuxuu soo xigtay saraakiil military oo Mareykan ah kuwa hadda xil haya iyo kuwa hore kuwaasi oo sheegaya in la taliyaasha sarsare ee Trump maalmahan ay si weyn uga hadlayeen in la beegsado kaamayaasha tabarta ee Iran iyo buundooyinka lagana dhigo bartilmaameed sharciya. Trump ayaa aragtidan waxa uu ku muujiyay khudbad telefishinka laga sii daayay isagoo ku hanjabay in uu duqeyn doono Iran. Laakiin wargeysku waxa uu xusay in qawaaniinta caalamiga ah aysan ogolayn beegsiga kaabayaasha rayidka taas oo loo adeegsan karo cadaadis dhanka siyaasadda. Laakiin waxaa la yiri waxa loo baahan yahay in la caddeeyo faa'iidada military ee muuqata ee ku jirta in la beegsado goobaha kaabayaasha rayidka. Waaya waanu imaan doonaa Trump oo isna mar kale xalay soo hadlay laakiin arrintan inuu dul istaagno. Wargeyskan Mareykanka ayuu ka soo baxaa. Dadkii qaanuunka ku takhasusay waxay leeyihiin haddii la weeraro kaabayaasha tamarta iyo buundooyinka waa dembi dagaal. Su'aalaha marka ka taagan gudaha Mareykanka waxaa la leeyahay laba ciidan baa dagaalamaysa. haddaad Iran wax ka tari kartaan ciidankeedii waa burburinaa leedihiin hawadii baan la wareegnaa leedihiin maxaa laga rabaa kaabayaasha korontada iyo biyaha iyo shidaalka haddaa ciidan u diri kartid ciidan u dir haddii aad weerari kartid weerar laakiin kaabayaasha rayidka waa dagaal cadowtinimo qawaaniinta caalamiga ahna waa dembiye dagaal nin khabiir Mareykan wuxuu leeyahay maanta ama berri waxaan sugaynaa buu yiri mustaqbalka madaxda Mareykanka in la keeno maxkamadda cadaaladda adduunka. dabcan dood baa ka taagan maxkamadahan dambiyada dagaalka iyo tan cadaaladda adduunka iyo waxay u samaysan yihiin dood baa ka taagan. laakiin maalin uun way imaanaysaa buu yiri ninkan khabiirka ah waa nin Mareykan ah. marka arrinta dadka isku qaban laadahay waxa weeye hawadii Iran waynu la wareegnay madaxweynihii Mareykanka Donald Trump iyo xogeyihiisa dagaalka Pete Hegseth ayaa waxay leeyihiin mar walba ay hadlaan Iran awooddeeda waa burburinay 90% gantaaladii waa burburinay. waayo maxaa ka rabta marka korontada iyo biyaha iyo buundooyinka yani waa su'aal meesha ku jirta. Iran marka liis bay soo saarta waxay tiri maalinta la duqeeyay anaga xarumahaasi intaan oo xarumood oo Israa'iil iyo wadamada khaliijka ku yaal iyaguna burburi doonaan. Mareykanka waxa isna hadlay mas'uul sare oo ka tirsan ciidanka Quds Force leeyahay ama ciidamada Quds leeyahay waa ciidan ka hoos shaqeeya ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga Ismaaciil Khani wuxuu yiri maraakiibta Mareykanka gaar ahaan markabka Gerald Ford oo la filayo ku soo laabto gobolka bariga dhexe wuxuu yiri markuu soo maray kanaal Suez iyo badda cas waa beegsanayna. dabcan markabkan waa tiilir waa gubtay 600 sirrood baa gubatay baa leeyahay qaybtii waxa gubatay dharka lagu dhaqdo laakiin sariirihii ay ku jiifanayeen ciidanka iyo shaqaalaha 600 baa gubatay. laba habeen waxa la sheegay in sayxadda la jiifanayay markii dambe waa iyadoo loo waday Greega waxa waxa laga qaban karo Croatia la geeyay hadda waa la soo sameeyay wuu soo socdaa marka waxay leeyahay markabkaas markuu soo maraayo kanaal Suez iyo badda cas waa beegsanayna. warbixin marka waxay noo soo socotaa ka duwan waxa ay sheegayeen madaxweynaha Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo sirdoon warbaahinta Israa'iil ay qorayso Mareykanka ay ka hadlayaan oo la yaab leh. laakiin aynu eegna haatan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump hadal xalay uu jeediyay oo kooban oo ku aadan arrimahan socda iyo xaaladdu sida ay tahay. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay wuxuu bartiisa baraha bulshada uu ku gudbiyay muuqaalka iyadoo la duqeynayo goobo military iyo xarumo ku yaala waddanka Iran oo holac iyo uuro weyn ay ka baxayso. wuxuu yiri weeraradeena waaweyn ee Tehran aynu ku hayno waxay soo afjareen nolosha hogaamiyaal badan oo military oo Iiraaniyiin. Trump wuxuu intaas ku daray in hogaamiyaasha lagu beegsaday weerarka Tehran si xun oo caqliga aan geli karin
wuxuuna yiri kuwa kale geeri baa sugaysa iiraaniinta wax kala jecel Abbas Araghchi banaanbax baa lagu arkaa soo jooga dhar caadi iska wato iska socda Ali Larijani maalintii la dilayay 3 maalmood ka hor banaanbax buu ka qayb galay marka niman godgalaya ma halayri banaankii joogan kii la dilo ninka lagu bedelay waa laga soconaya waya imika waxaan eegaynaa warbixin ku saabsan faahfaahin laga helay warshad diyaaradaha droneska farsamaysa oo Israa'iil ku taal oo la gubay laakiin arinta la yaab kale waxay noqotay Iiraaniyiinta sida ku ogaadeen warshadan 48 saac ka hor baa la kala iibsaday heshiiskii markuu dhacay ayaa la duqeeyay aynu eegna warbixin amuurtan ku aadan oo wax laga qoray waa hagaag telefishinka Al Jazeera ayaa waxa uu diyaariyay warbixin gaar ah oo ay sii diyaarisay waaxda xogta furan ee telefishinkaasi waxaana shaacay ka qaaday faahfaahin sax ah oo ku saabsan gantaal Iiraan ay la heshay warshad diyaaradaha drone ka farsamaysa oo ku taal magaalada la yiraahdo Petah Tikva ee bartamaha Israa'iil kadib 2 maalmood oo kaliya markii la kala iibsaday kooxda xaqiijinta ee telefishinka Al Jazeera ayaa waxay sheegeen in ay go'aaminayaan macluumaadka iyo sawirrada ay heleen in goobta la weeraray ay tahay mid ay ka muuqanayaan dhammaanba sawirrada iyo juqraafiyeedka muujinaya in goobtaasi ay tahay warshad diyaaradaha droneska farsamaysa oo la weeraray shirkad dhanka qalabka hawada ka shaqeysa ee ciidanka ayaa waxay sheegtay in gantaalkan uu sababay khasaaro weyn waxaana lagu soo warramayaa in warshadan ay la soo wareegtay shirkad la yiraahdo Volrakis oo 70% saamiga ka iibsatay shirkadda Eurosol waxaana la sheegayaa in ay bixisay 26 milyan oo shekel oo lacagta Israa'iil ah isla markaasna ay qorsheynaysay maalgelin kale oo dheeraad ah in lagu sameeyo warshadan warshadu waxay soo saartaa droneska loo adeegsado arrimaha ammaanka waxaana adeegsada hay'adaha Israa'iil iyo waliba caalamka meelo badan oo kamid ah ayaa lagu adeegsadaa dakhliga sanadlaha ayaa lagu qiyaasaa inuu yahay 20 milyan oo shekel ganacsiga shirkadan ayaa la hakiyay iyadoo la qiimeynayo khasaaraha lamana soo sheegin khasaaro soo gaaray shaqaalihii inkastoo la sheegayo 2 kamid ah dhaawac inuu soo gaaray arrinta markii la leeyahay waxay noqotay sidee Iiraaniyiintu ku heleen xogta waxa hadda Mareykanka iyo Israa'iil leeyahay waxay tahay Iiraan goobaha ay beegsanayso xalay duqeymo ba'an bay qaaday Iiraan meelaha ay beegsato waxa kamid ah taliisyo muhiim ah sida ay sheegayaan ciidamada IRGC waa hagaag intaan u gudbin wararka kale balan eegin war hadda ka soo dhacay dhanka Xisbullah waxa Xisbullah wararka kamid ah ay soo saareen in weerar culus ay ku qaadeen ciidamada Israa'iil oo ku sugan koonfurta waddankaasi Lebanon telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu ka soo xigtay telefishinka Kanaal 12 Israa'iil laga leeyahay in Xisbullah weerar culus ay ka fulisay habeennimadii xalay goobo kala duwan oo ku yaala koonfurta iyo waqooyiga waa koonfurta Lebanon iyo waqooyiga Israa'iil dhinaca kale telefishinka Kanaal 12 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa wuxuu soo xigtay xog qiimeyn dhanka ammaanka ah oo laga helayo laamaha ammaanka Israa'iil waxaana la sheegayaa Xisbullah inay diyaar u tahay dagaal waqti dheer ah oo isku diyaarisay waxa la sheegayaa dagaalka xooggiisa in la filay inuu ka dhaco aaga webiga Litani waxa la sheegayaa in ilaa iyo 200 oo weerar Xisbullah ay filisay ayna diyaar u tahay weerar kale inay filiso arrinta Israa'iil walaalka ay ka qabtaa waxa weeye in lagu soo daro heshiis xabajajina haddii Mareykanka iyo Iiraan ay dhex maro in Iiraan ay ku xirto heshiiskaasi in aan la weerarin Xisbullah oo waliba hadda la sheegay awoodeeda inay dhisan tahay way Israa'iil marka waxay leedahay Xisbullah ida saas hadda u dhisan awoodeeda inay dhisan tahay haddii la yiraahdo heshiiska lagu soo daro markaas waa xalku ma fiicna waa tahay qodobkaas halkaas aynu kaga gudubnaa waxaan u gudbaynaa ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil ayaa xalay waraysi wuxuu siiyay telefishin laga leeyahay Israa'iil qayla dhan ayuu soo saaray maxay tahay arrintaasi waa idin faahfaahin doonaa sidoo kale waxaan idin haynaa warbixin dhanka sirdoonka oo warbaahinta Israa'iil iyo Mareykanku ay qorayso oo la xiriira wax ka duwan wixii ay sheegayaan Netanyahu iyo Trump oo la xiriira awoodda gantaalada Iiraan
iyo xeelad la yaab leh oo Iran ay isticmaalayso oo hubka ay kaga dhamaysay Mareykanka iyo Israa'iil intaan u gudbin qodobadaas aynu ku hakanno qadar wadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo subaxnimadan axadda toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad kala socon kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube, Facebook, Twitter ama X iyo Telegramka warbixino qoraal ah warar faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan barta internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirnaa HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka wahagaag intaan u gudbin wararka kale bal aynu eegno wararkii ugu dambeeyay gaar ahaan war la xiriira duqayn ba'an oo Mareykanku uu ku qaaday meesha ay ku dhacday diyaaraddii F-35 ahayd ee Iran ay soo riday inkastoo Mareykanku leeyihiin diyaaraddan waa F-15 laakiin sawirada la soo bandhigay iyo calaamadaha iyo xogta diyaaradda waxay sheegaysaa inay tahay F-15 Iranita laakiin waxay leeyihiin F-15 waa soo ridnay F-15 waa soo ridnay laakiin wakaaladda wararka Tasniim ee Iran laga leeyahay ayaa waxay sheegaysaa meesha lagu tuhunsan yahay dooliyihii inuu joogo xalay duqayn ba'an inay ku qaaday Mareykanku ku qaaday arrinta marka waa la yaabin yahay waxa leeyahay dooliyaha in dilaa la rabay mise meesha waxa ku qamaamay dadkii shacabka Iiraaniyiinta oo qof kasta doonaya inuu helo lacagta $60,000 oo la ballan qaaday haddaba aynu eegno warbixin amuurtan la xiriirta oo wakaaladda wararka ee Tasniim ay qorayso Tasniim waxay sheegaysaa in Mareykanku ay si xooggan u duqeeyeen koonfurta galbeed ee waddanka Iran halkaasi oo la tuhunsan yahay in ay tahay meesha ay ku dhacday diyaaradda laguna la'yahay dooliye Mareykan ah lama soo sheegin ilaa hadda khasaaraha ka dhashay goobtaasi laakiin duqeyntan waxay ahayd baa mid aad u ballaaran dhinaca kale militariga Mareykanka ayaa xaray waxay duqeeyeen magaalada Isfahan oo duqeyn culus halkaasi ay ka dhacday aynu ku sii soconnay wararkee waxaynu markaan eegaynaa ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil ayaa waraysi wuxuu siiyey telefishin laga leeyahay Israa'iil habeennimadii xalay warkan wuxuu qabsaday dhammaan warbaahinta haddaba aynu eegno waxa uu ka hadlay iyo qayldhaanta uu soo jeediyey Ehud Olmert ayaa wuxuu sheegay in waa sida uu yiri Yahuuddu ay fulinayaan dilal iyo sifayn qowmiyadeed iyo dambiye ka dhan ah aadanaha kuwaasoo ay ka wadaan daanta galbeed waraysi uu siiyey telefishinka kan 12 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa Olmert wuxuu intaas ku daray in arrintan ay keeni doonto in dawladda Israa'iil la horgeeyo maxkamadda Hague gaar ahaan maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee dagaalka warqad uu qoray taliyaha guud ee ciidanka Israa'iil Eyal Zamir iyo taliyaha booliiska Dani Levy wuxuu ku sheegay in loo baahan yahay in ay dalka ka badbaadiyaan masiibada soo socota wuxuu yiri haddii kale waxa tagi doontaan maxkamadda Hague arrintan ayaa waxa imaanaysaa xilli ay xoogeysanayaan weerarada Yahuudda deegaaminta looga sameeyay daanta galbeed ee la haysto dhulka Falastiiniyiinta ay halkaasi ka wadaan dilal burburin barakicin iyo balaarinta deegaaminta halkaasi laga samaynayo tan iyo 8 Oktoobar 2023 waxaana taasi barbar socotay baa la yiri dagaalka xasuuq ah ee ka dhacay Mareykanka Gaza weerarada daanta galbeed ayaa waxay sababeen dhimashada 1340 Falastiiniyiin ah iyo dhaawaca 11,750 kale iyo xiritaanka 22,000 oo Falastiiniyiin ah iyadoo ay jiraan digniino caalami ah oo sheegaya in Israa'iil ay ku dhawaaqi karto in daanta galbeed ay la wareegtay 21 bishii November 2024 maxkamadda ICC ayaa soo saartay amar soo qabasho oo ka dhan ah Netanyahu iyo wasiirkii hore ee gaashaandhigga Israa'iil Yoav Gallant iyadoo lagu eedeynayo dambiye dagaal oo ka dhan ah aadanaha December 2025 ICC waxay garafka ku dhufatay soo jeedin ka timid Israa'iil oo ahayd in la laalo amarka soo qabashada Netanyahu iyo Yoav Gallant iyadoo weli ay taagan tahay maxkamadaasi warkii ay soo saartay ahaa soo qabashada ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo wasiirkiisii hore ee gaashaandhigga Yoav Gallant ninka marka wuxuu leeyahay waxa ka socda daanta galbeed waa isirsifan eragaas oo isticmaalay wali marka arinta ugu daran waxay tahay oo xalay ilaa saaka Israa'iiliintu ka hadlayaan waxa la ninkani waa ra'iisul wasaarihii hore Israa'iil
إسرائيل بوحو كو إيدينيا إسر سفين قوميدات إريغان وإري أعدو عرس فلسطيني ما أهن عرب ما أهن ودمار هير قلبيدا ما أهن ورئيس الوزاري هو إسرائيل وحالي مركا وركيس عدين بو نقون كرا هدي بري محكمة للإسرائيل تقو وحالي وركا يا شيغي رئيس الوزاري هو إسرائيل أيا شيغي لكن dad badan waxay leeyihiin timirtii hore dab loo waa macnaha maxkamadii hore amarkii ay soo saartay ma la soo qabtay Netanyahu hadda markii ugu dambeeyay safarkiisa uu ku tagayay wadanka Mareykanka diyaaradiisu waxay dul martay dhowr wadan oo maxkamadda dibadda dagaalka saxiixay oo reer Yurub qaar way diideen Spain waxay tiri hadii aad soo martay hawadeena diyaaraddu waa dejinayna كتيرد ما جمعها كعقد فرينا لكن فرانسيسكا غريغا يتليانيغا ayaa ogolaaday wadankeena Hungary gabi ahaan buu ka baxay maxkamadaas sababta maxay tahay Israa'iil darteed way warkaas halkaas aynu kaga gudubno waxaan imika eeganaa warbixinta ku saabsan ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump marba waxay leeyihiin awoodda Iran waa la burburiyay waliba Mareykanka ugu daran boqolkiiba 90 awoodda Iran waa burburinay sidaas waxa leh madaxweyne Donald Trump iyo xogayihiisa dagaalka Pete Hegseth waliba waxay leeyihiin hawada Iran anaga si aad doon ugu mushaaxi karnaa waa dul marayna laakiin waxa fuuqsaday wixii jimcihi dhacay warbixin marka waxa soo baxday sheegaysa Iran in xitaa goobihii la duqeeyay iyo gantaaladii la burburiyay ay dayactirtay والله وحلي مقرانجا غورمي سميسا ليه هذا aynu eegna warbixinta amurtan ku aadan oo warbixinta Mareykanka iyo tan Israa'iil ay qorayso sida lagu